bismillaahi raxmaani raxiim akhyaarta hawada nagala xidhiidha ay ku soo dhowaada warka raadiyo kulmiye duulimaadyada garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ee muqdisho oo hakad ku jira kadib diyaarad saakay halkaasi ku burburtay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo munaasabad lagu soo xirayay shirkii madaxda muqdisho ku shiray ka sheegay in weli xuquuqda gobolka banaadir ay maqan tahay hay-ad dabagasha xawaaladaha oo sheegtay in malaayiin dollar gudaha soomaaliya loogu kala wareejistay shakhsiyaad hubka ka ganacsada oo ajaanib ay ku jiraan maraykanka oo sheegay in dadka fatahaadaha soomaaliya ay saameeyeen ay ku deeqayaan lacag iyo raashiin qaar ka mida ururada saxaafadda oo cambaareeya xarigga magaalada hargeysa maalmo ka hor loogu geystay wakiil wareedka KNN ee magaaladaasi ciidamada ammaanka jubbaland oo magaalada kismaayo ku qabtay in ka badan 100 qof oo qalalaase ku eedaysan maraykanka oo ciidamo aad u badan geeyey waddanka Syria iyo madaxweynaha dalka Peru oo ka badbaaday mooshin xilka qaadis ahaa oo laga gudbiyey markale duhur wanaagsan dhageystayaal intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorka roon warka duhurna aad ku maqli doontaan waa sabti ay taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha September sanadka 2020 qodobadii aad dhageysateen waxaa soo saaray Axmed Maxamed Ibraahim Cabdicasiis Ibraahim Ahmed Cabdicasiis okay yanigoo Shamis Xasan Haruun ayaa idin warami doona markan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan duulimaadyada garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa hakad ku jira kadib markii saakay halkaa ay ku burburtay diyaarad rakaab siday waryahayga Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya waxaa muddo ku dhow 5 saacadood hakad ku jira duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib markii ay saaka dhacday diyaarad u socotay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan diyaaradda ayaa waxa ay xamuul u siday magaalada beledweyne balse hawada sare markii ay gaartay ayay dib u soo laabatay kadib markii duuliyuhu u dareemay ciladan waxaana burbur xoog leh uu ka soo gaaray qaybaha hore si ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo la hadlay idaacaddan kulmiye ayaa faahfaahin ka bixiyay diyaaradda xamuulka ahayd oo saaka ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 4 qof oo shaqaale ah ayuu sheegay in ay la socdeen diyaaraddan kuwa oo la soo badbaadiyay inkastoo ay soo gaareen dhaawacyo fudud sida uu sheegay wasiir Omar diyaarad Fokker 50 oo ka baxday Muqdisho u sii socotay beledweyne xamuul waday ayaa markii ay baxday wax yar maqnayd kadib waxay soo sheegtay in ay cilad ka haysato dhinaca hydraulic inuu ka haysto ay soo sheegeen taawarka ay la soo hadleen waa loo diyaar garoobay diyaaradii way soo laabatay muddo kadib waxay ka soo degteen runwayga dhinaca badda jiro ayay ka soo degtay meel nadiif ah aad u wanaagsan nasiib darro markii ay diyaaradii soo degtay ayay diyaaraddu waxay aaday dhinaca badda ayay u jiidatay pilotkii marka waxay ka dhex baxday runwaygii waxay aaday dhinaca badda derbiga airportka ayay markii dambe ku dhacday diyaaraddaas damage weyn ayaa soo gaaray 4 qof ayaa saarnaa kuwa 4 qof 3 qof waa laga soo saaray iyaga oo dhaawac sida muuqatay aanan weyneyn gaaray 1 qof ayaa hadda ku jira qofkaasi wali wuu la hadlayaa dadka banaanka jooga waxaan rajaynaynaa insha Allah taala daqiiqadaha soo socda in qofkaasina laga soo saaro kadibna aan furo airportka dib loo furo haddii Ilaahay ka raali noqdo wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ayaa sheegaya in shaqadii garoonka uu hakad sii ahaan doono ilaa iyo 3 galabnimo ay maanta si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe ayaa waxaa sii badanayay shilalka diyaaradeed ee ka dhaca gudaha Soomaaliya waxaana ugu dambeeyay midkii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in weli ay maqan tahay xuquuqda gobolka Banaadir sida warkan uu ku faahfaahinayo Farxaan Maxamed Xuseen madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo ka hadlayay munaasabad xali lagu soo gabagabeynayay shirkii u socday madaxda maamul goboleedyada ee kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Qoorqoor in arrimaha doorashooyinka xal laga gaaray isla markaana loo baahan yahay in shacabka iyo siyaasiyiinta ay soo dhaweeyaan Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor waxa uu sidoo kale sheegay in xuquuqda gobolka Banaadir ay weli maqan tahay matalaadda siyaasadeed waxaana shacabka ugu mahadceliyay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen madaxda maamul goboleedyada wixii la qabay ama la toonsanaa
ama mararka qaar loo qabtami jiray halkaasay ku soo dhammaadeen dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtada gaar ahaan qayb kasta oo danaynaysa qaabka doorashada waan jeclay inaan doorasho ku galno ama dalku doorasho ku galo doorasho la daadejiyey baahsan qof iyo cod ah laakiin duruuftaas aan eegaysay sidaa darteed waxaan rabaa sidaan u xeerinay wax badan sidaan u fiirinay wax badan dhinacyada oo dhan ay nooga qaataan nala xeeriyaan waxaan rabaa sidoo kale ugu mahad celiyo maamulka iyo shacabweynaha gobolka banaadir siday noo soo dhoweeyeen oo sharafta badnayd oo ay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay soo dhoweeyeen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin weliba hawsheedu waa maqan tahay waa mas-uuliyad welibiiska saaran gobolka banaadir si weli lahaa dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna ka hadlayay munaasabad casharaf ahayd ee lagu soo gabagabeynayay shirkii Muqdisho ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne Farmaajo sheegay in sababta ugu weyn ee uu tanaasulay doorasho qof iyo cod ay tahay in madaxda maamul goboleedyada ay dhammaantood hal meel isku wada raaceen markii aan xagga isku tagnay waxaan idhi walaalayaalow qol gala idinku xal ii keena hal runtii ummadda Soomaaliyeed u qalmi kara oo wanaagsan oo macquul ah ii keena waxay iga maqnaayeen 7 saacadood way ugu soo noqdeen waxay ii keeneen heshiiskii ka soo baxay Samareeb 3 runtii waana ka naxay waana ku farxay oo waxaan ogahay labada kale oo maqan inay meel fog ka hadlayaan marka waxaan idhi intaan orod ku qaado oo wax kale la soo yimaado waxa laga yaabaa inay istiraatiijiya waxay ka ilaalinayaan nuclear inay hal mar ugu tuuraan nuclear option waxaan idhi see ummadda wargada hawshaan ilaan 4 sano waxaan iibinaynay aan ummad u sheegaynay shuruuc u sameynay ummadda Soomaaliyeed aan maalin iyo habeen baan u sheegaynay in dalku uu gali doono qof iyo cod waxay yiraahdeen rag kale meesha joogaan ma ogide intaan qaado oo ummadda intaan u sheeg alxamdulillah wixii na dhex maray ummadda waa u sheegay waxay leeyahay ummaddu inay intaas ku qanceen hadda marka imaanshaha halkan ay yimaadeen sidii kale sameeyay waxaan idhi qoltaga shantiina fariista ii keena wax ummadda Soomaaliyeed ay ku qancado oo sharci iyo dastuur ku dhisan aniga ragga moodaa inay la socdeen iyaga ugu horeeyaba qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ay ku yeesheen madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu soo hadal qaadin matalaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir hay-ad dabagasho xawaaladaha oo sheegtay in malaayiin dollar gudaha Soomaaliya laga kala wareejiyay shakhsiyaad hubka ka ganacsada oo ajaanib ay ku jiraan warbixintaasi waxa inoo faahfaahinaya wariyahayga Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan warbixin ay daabacday wakaalada wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in shirkadaha xawaaladaha Soomaaliya in ka badan 3.7 milyan oo dollar oo kaash ah ay u kala gudbiyeen dad looga shakiisan yahay in ay ka ganacsadaan hubka sanadihii la soo dhaafay oo uu ku jiro qof u dhashay wadanka Yemen wakaalada wararka ee Reuters ayaa aragtay natiijada ay soo saareen kooxda cilmi baarayaasha ee fadhigoodu uu yahay magaalada Geneva waxaana kooxdan magacooda la yiraahdaa Global Initiative Against Transitional Organized Crime ay sheegeen in xaaladan ama ay si murjin karto xawaaladaha Soomaaliya iyo qaabka ay ku shaqeeyaan waxaan hadda ay sheegtay وأما warbixinta ay tilmaamaysaa in hadda xawaaladaha Soomaaliya ay la ganacsanayaan bangiyo yaryar taasna sababtu ay tahay ama ay imaan kartaba khatar ah in shirkadaha xawaaladaha ay hoos u dhacaan maadaama bangiyada waaweyn ee caalamka aan la ogoleyn in ay la ganacsadaan sababaha ugu weyn ay tahay kooxo in markaasi lacagtu ay helaan kooxo aan la ogoleyn ama argagixisa iyo soo kaleeto kooxo iyana burcada oo markaasi iibsada hubka ama ku iibsada suuq madow inkastoo ay malaayiin u shay dalka Soomaaliya oo markaas ay noloshoodu ay wakiil ka yihiin amaba ay lacagtu u soo gaarto haddana waxa jira in markaas shaki badan uu ka muuqdo qaabka ay lacagtu u gudbiyaan ayaa lagu yiri warbixintan oo ay daabacday wakaalada wararka ee Reuters
wakaaladda wararka ee Reuters. waxaa kaloo wakaaladdu ay sheegtay in mas-uuliyiin ka tirsan shirkadahan su'aalo badan laga weydiiyey. Reuters waxa ay sheegtay in ay la hadashay ilaa iyo 4 shirkadood oo ay ka mid yihiin Dahabshiil iyo sidoo kaleeto Iftin Express iyo sidoo kaleeto xawaalada Taaj, waxaana ay sheegtay dhammaantoodba in ay si dhab ah u raaceen xeerarka caalamiga ah ee looga talagalay. waxaase warqadan ku xusan in shirkadaha Iftin Express iyo Amal Express ay markaasi lacag u gudbiyeen nin u dhashay waddanka Yemen, kaas oo ay dowladda Mareykanka cunaqabateen ay dul saartay. waxaana xawaaladahan iyaguna ay sheegeen in aanay jirin wax dukumiinti ah ama ay lacag u kala gudbiyeen ninkaas oo markaasi dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay cunaqabateen dul dhigtay sanadkii 2017. ninkan oo magaciisu la yiraahdo Al-Hawaashi ayaa waxa uu Mareykanku uu sheegay in uu kaalmo siinayo ururada argagixisada sida Daesh iyo Al-Qaacidada bariga waddanka Yemen. waxaa kaloo jirta in mar wax laga weydiiyey madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya arrintan ay sheegeen inaanay xawaaladaha ka warhayn, laakiin ay markaasi ay la xisaabtami doonaan ama ay eegi doonaan qaabka ay horumarka ay sameeyeen sida ay uga hortageen maalgelinta argagixisada ayaa lagu yiri. waxaa kaloo jirta in magaalada Boosaaso ee caasimadda waddanka bari caasimadda gobolka bari aan iraahday ay markaasi 176 qof laga diiwaangeliyey sanad 6 sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo ay warbixintu sheegayso in ay macaamiil ganacsi la leeyihiin kooxo argagixisa. xogtan waxaa lagu sheegay in inta badan lagu soo ururiyey dhinaca telefoonka iyo saraakiil amni laga helay. wararkan ayaa waxa ay imaanayaan iyada oo Soomaaliya 20kii sano ugu dambeeyay ee burbur oo ay markaasi uu ka jiray burbur. waxaa kaloo jirta in shirkadaha isgaarsiintu ay kaalin firfircoon ka qaateen xilli dalka uu marayay marxalad adag. ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabtay in ka badan 100 qof kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qalalaase. howlgalladan ayaa 24kii saac aynu ka soo gudubnay ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo, waxaana markaas saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in howlgalladan ku dhowaad dad gaaraya 200 oo qofood oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab lagu soo qabtay. laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in baaritaano kala duwan ay ku hayaan dadka lala xiriirinayo in ay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in saacadaha soo socda ay laamaha ammaanka ee Jubbaland ay soo gabagabeyn doonaan howlgallada ammaanka lagu xaqiijinayo. saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo siyaabo kala duwan aan ula xiriirnay ayaa waxa ay noo sheegeen in howlgalladan ay ka dambeeyeen kadib markii magaalada gudaheedu ay ku soo bateen falal liddi ku ah ammaanka, kuwaasi oo ay sheegeen in ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka fulinayeen gudaha iyo weliba xaafadaha guud ee magaalada Kismaayo. dhinaca kale muddooyinkii aynu soo dhaafnay magaalada Kismaayo waxa ku soo badanayay dilalka qorsheysan kuwaas oo loo geysanayo dadka wax ku oolka iyo weliba mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland ayaa waxa ay markaasi sheegeen in howlgalladan ay u yihiin kuwa looga hortagayo weerar kala duwan oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay la damacsan yihiin inay ka fuliyaan gudaha magaalada Kismaayo. dhinaca kale xaafadaha guud ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale wadooyinka muhiimka u ah magaalada Kismaayo ayaa xilligan waxa markaasi soo buux dhaafiyay ciidamo aad u badan, kuwaas oo la sheegay inay yihiin ciidamo si gaar ah u tababaran, kuwaas oo markaa loo tababaray in ay ka hortagaan weerarada iyo weliba qaraxyada ay fuliyaan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. ma jirto ilo kale oo madax bannaan oo hadalka saraakiisha ciidamada Jubbaland ee xaqiijinaya in howlgalladan ay ciidamadu ka sameeyeen gudaha magaalada Kismaayo sidoo kale lagu soo qabtay waxyaabaha markaasi qarxa, iyadoona markaa dhinaca kale saraakiisha ciidamada Jubbaland aynu waxyaabo badan aynu ka weydiinay howlgalladan iyo waxyaabaha ay ku soo qabteen ayaa waxa ay sheegeen in saacadaha soo socda ay warbaahinta la wadaagi doonaan hub ay sheegeen in koox ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qarsadeen xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo. wararkii ugu dambeeyay aynu ka helino howlgalladan ay sameynayaan ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada howlgalka inta ugu badan ay ka fuliyeen xaafadaha Shaqaalaha iyo Farjanne oo ka tirsan magaalada Kismaayo. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa ciidamo badan waxa uu geeyay waddanka Syria. militaarka dalka Mareykanka ayaa la sheegay in ciidamo dheeraad ah oo xoojin ah u direen dalka Syria kadib markii isku dhac uu dhex maray ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ruushka ee jooga Syria. ciidamada Mareykanka ah oo watay gaadiid dheeraad ah ayaa gudaha u galay dhowr magaalo oo Syria ku yaala, waxayna u gudbeen xeryaha Mareykanka ay ku leeyihiin gudaha waddankaasi Syria.
ciidamadan badankood waxaa laga soo qaaday xeryaha maraykanka ay ku leeyihiin waddanka kuweyt. ciidamadaasi ayaa israsaaseeyey iyagoona ku jira howlgal gaar ah sida warbaahintu ay ku warramayso. cabsida ayaa sii xoogaysatay kadib markii meel u dhow xeryaha ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin siiriya ay tageen ciidamo raashiya ah oo gaadiid dagaal wata.